Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Bashir Maxamuud Beerdaro iyo barnaamijka saakii suuqa kaliibsiga ciyaartooyda aad kala socotaan channelkayga waxaynu kusoo gudbinaa wararka ugu xiisaha badan ee dhanka suuqa iyo warbixino xiiso leh oo ku qotoma dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa inay iska iibiyaan xiddig u dhashay waddanka Faransiiska ee khadka dhexe ku caanbaxay ee Paul Pogba oo 25 jir ah bishii January ayayna xiddigan doonaysa inay iska dirto kadib bandhig liito xiddigani uu la qaadanayo kooxda kubadda cagta ee Manchester United isagii macalinkiisa ayaana isku dhacsan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa rajeynaysa inay heshiis hordhac la gaarto xiddiga kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee 20 jirka u dhashay waddanka Mareykanka ee khadka dhexe ka ciyaara ee Christian Pulisic waxaana ay doonaysaa xiddigan inay soo qaataan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United macalinkooda Jose Mourinho ayaanan dooneynin haddii aysan kooxda dib ugu soo laaban bisha January suuqa kala iibsiga isla markaana dhaqdhaqaaqa xoogan ay ka sameyn waayaan suuqa kala iibsiga macalinka ayaa sheegay inay jiri doonto culays ku aadan hankiisa isla markaas uusan aqbalaynin in arrintaasi ay dhacdo warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Barcelona ayaa iyaba gaarsiinaysa xiddiga kooxda Chelsea ee 22 jirka ee Danish-ka u dhashay ee lagu magacaabo Andreas Christensen waxaana ay doonayaan inay soo qaataan inkastoo hogaamiyaha Barcelona Ernesto Valverde uusan xiiseynin in daafac dambe uu soo qaato bisha January haddana xiddigan ayaa Barcelona lala xiriirinaya warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Arsenal ayaa iyaba gaarsiinaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona xiddiga ka tirsan ee 24 jirka u dhashay waddanka Spain ee Denis Suarez xilli ay doonayaan in la dhimo xiddigan qiimaha lagu heli karo ee ku aadan 14 milyan bishii January ayayna u dhaqaaqayaan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah West Ham ayaa doonaysa inay soo qaataan xiddiga Manchester United ee u dhashay waddanka Brazil da'yarka Andrea Pereira oo 22 jir ah qab amaah ayayna bishii January ugu dhaqaaqayaan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal ayaa iyagu doonaysa markan xiddiga kooxda Boca Juniors ee 22 jirka u dhashay waddanka Argentina garabka duule ee Christian Bovan waxaana xiddigan lagu qiimeynayaa adduun gaaraya 40 milyan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah golayaha u dhashay waddanka Costa Rica ee Keylor Navas oo 32 jir ah ma doonayeen bishii January uu ka tago kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli uu xiddigani lumiyay booskiisa koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Los Blancos warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Inter Milan xiddiga kabtanka u dhashay waddanka Argentina ee weerarka ka ciyaaray Mauro Icardi oo 25 jir ah waxa uu wadahadalo kula jiraa kooxdiisa ku aadan qandaraas cusub oo qalinka ugu duubo kooxdiisa kubadda cagta ee lagu magacaabo Inter Milan gebi ahaantaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkiisa saakii suuqa kaliibsiga oo aan kusoo qaadana warar xiiso leh oo dhanka suuqa iyo warbixino xiiso leh oo ku qotoma dhanka suuqa tan ay kula dama dhammaanteen nabadgelyo